subaxnimadii hore ee saaka waxa magaalada Gaarisa ee magaalo madaxda u ah gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya ka kulanyeystay waftigii uu hogaaminayay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed iyagoo uu sii jeeda xirada qaxoontiga ee Dadaab gaar ahaan laanta Ifatu waftigan oo socdaalkooda ku wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkani Kenya Faarax Macalin iyo aqoon-yahan weyn oo siyaasi ah oo lagu magacaabay Cabdillaahi Tabliiqi iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa gaadhay goobta ay ku sugnaayeen dadkii abaaruhu soo tabaaleeyeen waftigan ayaa deeq raashin oo isugu jirta sonkor saliid bariis iyo caano u qaybiyay in ka badan 6200 oo qoys hadaba deeqdan kaalmada ah ee dawladda Soomaaliland iyo shacabkeedu ay ugu deeqeen dadweynaha tabaalaysan ee ku nool xiriyaha qaxoontiga ee Dadaab iyagoo ay waliba gacantooda ugu qaybinayaan wasiirada dawladda Soomaaliland iyo madaxda kale ee la socota ayaa wax weyn ka bedelay dhammaan qalbiyada dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya iyo dareemada hay'adaha ka hawlgala gobolada Waqooyi Bari xaruntooda Dadaab hadallo kooban oo wasiirka diinta iyo awqaafta Khaliil Cabdillaahi Axmed isagoo oo ku sugan hagarkii uu raashinku yaalay uu halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa u dhacayeen sida tan walaalaheena ku tabaalaysan ee ka yimi ka soo barakacay Soomaaliya ee ku jira xiriyaha qaxoontiga ee Dadaab gaar ahaan xeeradan Ifatu oo dadkii cusbaa u badan waxa aan maanta soo gaarsiinay haddaan nahay mas'uuliyiintii dawladda Soomaaliland iyo guddiga abaaraha loo xil saaray iyo taakuleynta walaalaheena Soomaaliyeed taakuleyntii aan u soo ururinay ee bilaabay bishii dhaweeyay August 12keedii maantana ay tahay 28 September waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkani Kenya Faarax Macalin oo isaguna sheegay in dadka halkan ku dhaqani ay si weyn oo aad iyo aad ay ugu baahnayeen raashinkan maadaama ay yihiin dad buka oo xanuunsanaya baahidoodana aanay inta ku filayn laakiin dawladda Soomaaliland ay u dadaashay marka hore Ilaahay baynu ku mahadinaynaa marka xigana waxaan mahad ballaaran aan u fidinaynaa walaalaha iyaga ee Soomaaliland oo u soo gurmad u soo sameeyeen sidii ay walaalahood oo tabaalaysan oo abaarahay iyo wixii la midka iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinka badan intay ku habsatay haatanna ku qaxooti xariyaha Dadaab waxa kale oo isaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo gaar ahaan xubnaha kaga jira dawladda iyo golayaasha dadka Soomaalida Kenya oo ugu horeeyo walaalkii Faarax Macalin oo garabkayga taagan oo runtii dowr shariifa ka qaatay hawlahan gurmadka ah ee hadda loogu jiro iyo deganaanshahoodii horeba sidoo hadda xusay wasiirku ugu dambeyntii waxa kale oo halkaasi ka sheegay in aanay waxa ay sidaan ku filayn dadweynahan ay meesha ugu yimaadeen haddana ay tahay wixii dawladda Soomaaliland iyo shacabkeeduba ay u kari karayeen walaalahoodan baahan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada golaha guurtida Cabdilqaadir Maxamed Indhayndo iyada dhinaceeda kalena waxaan rabnaa inay Soomaalida Kenya joogta ay ku daydaan oo sidaan annaba wax u ururiyaan kuwa koonfurta jooga wax u ururiyaan oo ay noqoto arrinteedu good example ee aanay noqonin wax maanta buuran oo iyaga gaadha ma sidnaa tilmaan baanu sidnaa sidaan wax ku soo ururay waxay ahayd ardaynu saacihiisii masaajidka qof soo galay oo saad wax ku shubay qof shaqaale oo $1 laga jaray mid xildhibaan oo wax laga jaray mid askari ah iyadoo ammaanteedu madaxweynaha Soomaaliland leeyahay waxa kale oo goobtaasi isaguna ka sheegay in xilkii loo soo igmaday caawa uu ka dhacay si fiican ay u gamayaan safiirka xajka Soomaaliland Axmed Aadan Dagaal Axmed Safina arinka maanta yaalay waaqic aan ku jirnaa waxa weeyaan i'tiraafkii Soomaaliland oo soo dhawaaday ummadda Ilaahay meesha joogtayna dhamaantood inuu ugu duceeyeen inuu Ilaahay i'tiraafka Soomaaliland siiyo waxay jeceliina uu horumar iyo dawladnimada iyo shacabka muxaa Ilaahay bashbashii barwaaqo uu siiyo intaba ummaddu inuu ugu duceynaysay waxa hadallo mahadnaq ah iyo duca isugu jira ka soo jeediyay dadweynihii aanu halkaasi ugu tagnay qaar ka mid ah oo aanu mikrofoonka goobtaasi la dhex qaadnay dawladda Soomaaliland waxaan u rajaynayaa oo aan ugu duceynayaa aniga oo kal iyo laab ay ka soo goday ducadaas iyo maxay tahay hadafkaygaba in ay helaan i'tiraaf oo aan la aqoonsado ayaan waxaan dadweynaha ugu codsanayaa in dawladda Soomaaliland ay tahay dawlad jirta ugana fiican dawladaha hadda oo maxay tahay isku sheegay maamul goboleedyada ka fiican tahay oo ugu horeysana haddaba tallaabadani ayaa noqonaysa tii jamhuuriyadda Soomaaliland
u sahli layd dhabayaasha ixtiraafka marka aanu dadka dareenkooda iyo hadafkooda weydiinay sida khushuucda leh ay ugula dhaceen amaba ducada dadka ka dhacaysa marka aynu soo qaadanno tallaabadan waxaynu oran karnaa waa tii sahli lahayd dhabayaasha ixtiraafka jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland xeradayfo